waxaan aad ugu faraxsanahay furitaanka mashruucan bilowga ah wanaagsan u ah horumarinta ubadka Puntland dhammaantood. waxaan sidoo kale aan aad ugu faraxsanahay in mashruucan lagu saleeyo qorshaha shanta sano ee guud ee qorshaha waxbarashada degdega ah ee waxbarashada Puntland. sida in badan halka laga sheegay mashruucan waxaan rajaynaynaa in uu saldhig u noqdo sabab la'aan inaysan sabab marna aysan u jirin ardayda ay waxbarashada uga baaqdaan oo mar walba iyo duruuf kasta oo jira ay la jaan qaado tacliinta. runtii Puntland dadka kale iyo hay-aduhu waxay qirayaan in nidaamka waxbarashada ee Puntland ee hadda muddada soo jiray inuu guulo badan gaaray. waan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay oo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha gargaarka ee la garab taagnaa iyo dowladda guud ahaan mar walba ahmiyadda waxbarashada dareenkaas qabtay. anigoo runtii ahaa dadkii markii horena tacliinta ka shaqayn jiray inay dadkii Puntland madaxdii ugu horreysay heerkaas soo gaarsiiyeen aad baan ugu faraxsanahay. waan uga mahadcelinayaa. waxaan rabaa dhowr arrimood intaan hadalladeeda aad u sii dhexgelin inaan taabto qodobka ugu horeeya oo wasiirka qorsheyntu ka hadlayay waxbarashada miyiga. dabcan waxay u baahan tahay arrintaas in wasaaraddu si dhab u eegto. suuragal ma noqon karto nidaamka nolosheenna ee miyiga inaan nidhaahno waxaan dhiirigelinaynaa nidaamka loo yaqaano formal educationka oo inta badan dad degan target gareeya ama dad degan ku salaysan. waxaan u baahannahay qorshe ka duwan iyo manhaj iyo syllabus ka duwan midka caadiga ah oo miyiga loogu talagalay oo siinaya aqoonta ay iyagu u baahan yihiin. waxaan u baahannahay arrintaas in dib loo eego maxaa yeelay qofka miyiga jooga marka laga tago waxbarashada guud oo dee uu kor u qaadaysa garaadkiisa wuxuu u baahan yahay waxbarasho gaar ah oo waxa uu ka shaqaynayo khusaysa oo u baahan in manaahijta loogu daro sida adduunka kale ka dhacda ama qayb kastoo waxbaranaysa skillska la kala baro waa kala duwan yihiin. waxaan halka aad ugu faraxsanahay inay joogaan qaybna ka ahaan doonaan mashruucan arday iyo maamulayaashii dadka baahiyaha gaarka qabay oo ay ka mid yihiin kuwa indhoolayaasha iyo kuwa dhegolayaasha. iyadana runtii waxa weeye waa guul wasaaradda waxbarashada inay arrimaheedaas ay gaartay. waxaan u baahannahay sida la sheegay waxbarashadu maadaama cid kasta aysan u baahan tahay inay gaarto oo inay ka faa'iidaysato tahay oo aysan sugi karin waxaa la rabaa in cid walba meeshooda loogu tago. waxaan ogahay aniga Puntland intaan ka warqabo waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha Puntland ay ku ammaanan tahay oo geybi ahaan geyga Puntland intooda badan ay tagto haddaan khaldanayn oo wasaaradduna inay saas tagto oo laamiga dhinacyo badan uga degdegto. haddana waxaan rajaynayaa inay sidii si ka badan inay mashaariicda muhiimka oo wax ku oolka ah la geeyo meelaha ay ku habboon yihiin iyo sidii ugu kala habboon yihiin. waan runtii kula dardaarmayaa wasaaradda qorshayaasha marka ay samaynayso inaysan inta badan meelaha u fudud oo u sahlan aysan xoogga saarin oo laamiga la ordin waa xaqiiqo jirta. waxaan u baahannahay in waxbarashadu ay gaarto cidda u baahan meel kasta ay jirto. waxaan sidoo kaleeto runtii uga mahadcelinayaa hay-addan iyo Saynab iyo asxaabteeda kale ee halka joogaya kuwa maqanba oo runtii mashruucan ama abuuriddiisa fikirkan ama lacag raadintiisa ama fulintiisaba runtii waqti geliyey. aad bay ugu mahadsan yihiin. waa wax aad loogu baahnaa oo aan hore looga fakari jirin maxaa yeelay waxa annagana qabsada adduunyadu waa ka gudubtay waa wax gaar noo ah. waxa keliyoo dadka barakicinaya raxmadda ilaahay oo wax yar ka tahay oo meeshii deganaayeen meel kale uga raraya ma aha kuwii miyiga xataa kuwii magaalooyinka iyo tuulooyinka yaryar ee iskuulaadka jireen baa guuraya. marka qorshahaas maadaama uu gaar noo yahay runtii waxay ahayd arrin fiican oo aad looga fakeray oo aan rajaynayo in la sii horumariyo. waxaan kula dardaarmayaa dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha khuseeya iyo hay-adaha ka shaqeeya in mashaariicda la dhowro siday tahayna ay u fulaan
oo aanan la hareer marin la musuqmaasuqin la xajeclaysan meeshay ku habboon tahay inta badan taargetka loo dhigo maxaa yeelay dadkeenu waa iswada mid waan rajaynayaa in ceebaha noocaasa puntland ay ka sifowdo aysan ku aysan noqonin inaan laga furin meelaa cilmi joogin iskuulla ka dhisan baa meelaha qaarkood lagu arkaa meesha mashruuca laga dhisaayo waa inuu ahaadaa meel populationkii munaasabku ahaa ay joogaan marka taasna in aad loo fiiriyo dadka reer miyiga ay guuraayana hab loo helo ku habboon oo ay ku shaqayn karaan waxaan runtii markhaanti ka wada nahay waxa maanta qabsoomay iyo quruxda maanta jirta iyo horumarka maanta la gaar inaysan ahayn wax riyo ku dhashay iyo wax iska samaysmay laakiin ay tahay wax fakar ka yimid waqti la geliyey maalgelin la geliyey mid maskaxeed iyo mid maal iyo mid nafsadeedba miro dhilka maanta la hayo waa abuurkii shalay abuurka maantana waa waxaan rajaynaynaa inaan goosanno mustaqbalka soo socda cyclekaas ama garaantaas wareegaysa ayaa nolosha oo dhan oo bini aadamku soo martaa adduunkuna ku horumaraa puntland waxaa la rabaa wixii ay shalay soo maalgashatay oo ugu horraysay inay nidaam iyo maamul dhisato oo ay ku xigtay inay nabadeeda ka shaqayso oo ay ku xigtay dadkeeda inay u adeegto oo ay ku xigtay inay dadkeeda u hagto inaysan qixqixin oo barakicin oo tacliinta iyo nolosha deegaanadooda ugu timaado waynu garanaynaa wixii 1990 ka horreeyay wixii Soomaaliya ka dhacay waynu garanaynaa deegaanadeenu siday ahaan jireen waynu garanaynaa maanta muuqaalka aan leenahay iyo 20 sano ka hor muuqaalkii aan lahayn iyagoo duubanna waa yeelaan waan uga mahadcelinayaa BRDC in ay dokumentariyadaas oo xaqiiqi ah ay hayso in badanna ay shacabka iyo dadka la wadaagto haddii dadku wixii shalay dhacay ay maanta ilaawaan waa nasiib darro u baahan in gacanta laga qabto waxaan u baahannahay inaan aad ugu fara adeegno nidaamka aan halkaa ku gaarnay oo goosannay 98dii Soomaaliya markaan eegna xaaladeeda inaan idhaahno dalkan waa inuu nidaam federaal saldhigiisu noqdaa dadkiisuna deegaanadooda ay baahiyahooda iyo adeegyadooda ugu tagaan waxaad markhaanti ka tihiin in puntland maanta wax kasta oo looga baahan jiray xamar markii dowladda dhexe jirtay maanta in halkan lagu haysto hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay meeshaan rabnayaanan gaarin inta aan u oggolaanay dowladda dhexe inay haysana inaan ka helnaan ka rajaynaynaa waan ugu baaqaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda taagan waxaa ka mid ah oo nidaamka federaalkuna faray inay tacliintu ay ahaato state level oo ay dowladaha xubnaha ka ay leeyihiin laakiin waan u aqoonsannahay waxa aan qabanno markaan dibadda u baxayno inay siiso attestation waxa la yidhaha tasdiiq inay tiraahdo waxaas waa runtooda waan uga baahannahay maxaa yeelay nidaamka dawliga caalamka oo shaqeeya waan rajaynaynaa ardaydii sanadka ka baxday dugsiyada sare in ay nidaamka processka wixii dowladda federaalka uga baahan inay heli doonaan waan ka wada hadalna wasiirka waxaan rajaynayaa inuu dhowaan soo booqan doono garowe arrimaha dastuuriga ah marka aan ka hadlayno ama arrimaha aan rabno inaan mustaqbalka dalkan ku dhowrno macnaheedu maaha inaan dad gaara diidannahay dad gaarana aan balno waxa weeye waxaan ilaalinaynaa waa nidaamka maxaa yeelay nidaamkan dad baa soo ilaaliyey markiina la doortayna waa noola dhaariyo waxaa la yidhaahdaa wixii la soo qabtay ilaaliya marka waxaan ballan qaadaynaa annagu inaan ilaalin doono waxaan aad uga xumahay puntland dowladda federaalka ismaheedu waxay ku lahayd inaan ku celcelinno waxaa la moodayaa inaan abaal sheeganayn inaan ku celceliyo muhiim ah laakiin waxaad ogtihiin wax badan bay tartay waxaynu ku tari jirtay si maamul bay ku tari jirtay miisaaniyadda dowladda dhexe federaalka markay ka mid jirtay dad umaysan diri jirin qabiilana uma diri jirin nidaamka dawliga u diri jirtay wasaaradda maaliyadda hadday wax kala tarayso wadday u mari jirtay waxaa nasiib darro ah hantidii loogu talagalay dalka Soomaaliya oo ahayd in lagu kobciyo lagu eego in dalkan uu shaqayn karo nidaamkiisa maaliyadeed
markii arrimaha laga hadlayo wasiirka planning-kan ahaa waxaan ka mid ahaa wasiirradii aad uga qayb galay shirarkii loogu talagalay waxaan la yidhaahda country systemka in lacagaha la soo mariyo waxaa lagu guulaystay laba heer in loo kala qaybiyo heerka koowaad oo ah idinka toosni laguma dhiibi kare waxaa la furayaa waxa la yidhahda trust fund oo loo dhiibay bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta ee africa mashaariicda hadda ka socota halkoo dadka qaybkiisa u yaqaanaan world bank waxay ahayd lacagtii deeqihii soomaaliya loogu talagalay oo la soo mariyey bangiga adduunka iyo bangiga africa oo loogu talagalay inay kontroolaan mar inay si saxa u marayso iyagoo marinaya janalka dowladda iyo wasaaradaha waxaad markhaanti ka tihiin in macallimiin badan bayroolka ay qayb ka yihiin waxaad markhaanti ka tihiin shaqaale fara badan oo reer puntland iyo soomaaliya oo dhan inay qayb ka tahay waxaad markhaanti ka tihiin mashaariic badan oo dhinaca tacliinta iyo caafimaadka iyo kuwo kaloo la mid ah inay si hufan oo weliba ay puntland ammaan gaara ku heshay inay u fuleen waxaan rajaynayaa kuwa dambena inay sidaas ugu fuli doonaan waxaa taa xigtay in la yidhaahdo marka xiga daaragtaha loogu shubo central bankiga soomaaliya oo xilliga aniga aan joogay dhismihiisu socday dhismaha waxaan ka wadaa dhinaca maamulkiisa uu socday waxaan filayaa bashiir ciise waxaan ku maqlay inuu magaalada joogo oo xilligaas gabarnarka ahaa markii bangiga kor loo soo qaaday oo la yidhi lacagaa la soo mari karaa waxaa dhacay waxa la yidhaahdo budget direct support in miisaaniyadda dalka soomaaliya si toosa loo qabo oo bangiga dhexe lagu gasho oo lagu xiray bangiga dhexe uu mas-uul ka yahay soomaaliya oo dhan maxaa yeelay waxay ka mid tahay 4 qaybood oo dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay bangiga dhexe waxaa loogu talagalay inuu la macaamilo bangiyada isteediyada isagoo u maraya wasaaradda maaliyadda si mashaariicdaas marka siyaasiyan madaxda sare ay uga heshiiso sida qaybtu ay noqonayso qaybaha soomaaliya ay qaybsanayso waxna waa waxa khayraadkeedu ku jira si u qaybsanayso waxna waxa weeye mashaariicda magac soomaaliyeed lagu siiyo si u qaybsanayso hay-adaha hadda save the children iyo la mid intay meel tagaan ay mashruuc develop gareeyaan ay ama baraawo ka sameeyaan ama boosaaso ka sameeyaan iyagaa xor ah waa hay-ado NGO ah oo sharci la siiyey oo shaqadooda qabsanaya laakiin waxaan ka hadlaynaa mashruuca mugale ee dowladda soomaaliyeed la siiyey magaceeda wuxuu u baahan yahay allocation wax yahay cidda qaybinaysa iyo sida loo qaybinayo inay cadda waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tiraahdo annagaa qaybinayo iyadoo aysan sharci u lahayn kow haddii ay xataa qaybin lahayd inay tiraahdo reer baan ugu soo qoraya iyo magaalooyin aad baan uga xumahay oo la yidhaahdo dhallinyarada intii la kiciyo garoonka cawaale garoon haddaanan puntland nabad ka shaqaysan haddaysan tacliin ka shaqaysan banooni bay cayaari lahayn horta yaa banooni baa la cayaari lahaa puntland waxay ka shaqaysa nabaddii waxay ka shaqaysa tacliintoodii waxay ka shaqaysa horumarkoodii waxay siisay in ay u gudbaan puntland waxay sii dhaaftay dadkii reer puntland dadkii u soo barakacay inay guryo u dhisto dhallinyaradii halka ka hadlaysay waxaan filayaa iskuulka shabeelle markay lahaayeen waa kaamka shabeelle aan filaya ya waad arkayseen mustawaha waxay ka hadlayeen dadkii soo qaxay opportunity-ga puntland haysta in la eg inay qaataan ayay puntland ka shaqaynaysa marka ciladan soo baxday facebooka la yidhaahdo ee qof walba isa ka dhawaaqayo runtii waa dhibaato soo koran oo aan xal lahayn qof wuxuusan garanayn hadduu ka hadlo way adag tahay si loola hadlo oo lagu jawaabo waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqaynaya inay systemka puntland dumiyaan inay khalad weyn inay ku jiraan inay dareemaan waa dhici kartaa qaarkood niyadsamid inay jirto waan dareemi karaa ama dadkeennu waa dad dhigmaarah si wax loogu sheego oo qofka isaga uu markaas bidaayay in uu dad u xigo warkiisa inuu qaato laakiin qof dan leh ah waxaan rajaynayaa sharcigu dadkoo dhan buu ka weyahay sharcigu ciddii ku xadgudubta uu qabanaya haddaan sharciga aan ka leexanno dalkan ma jiraayo waxaan rajaynayaa dadka reer puntland inay qayb ka qaataan adkaynta sharciga kala dambaynta iyo ka shaqaynta horumarka saasaa dal nabdoon oo xasiloon ku noqon karna haddii kaleeto waxaan ugu dhacayaa waxaan runtii ka xunnahay dad walaalaheenna maanta haysta aan uga rajaynayn inay ka baxaan
waxaan fursad siin doonaa kuwa sharciga necab kuwa kala dambeynta necab kuwa dadka argagixiya kuwa dadka baada oo dila kuwa dadka ku khasba inaysan waxaysan raalli ka ahayn fuliya oo shabaab iyo wixii la halmaala waxa kaliya aan uga gudbi karnaa waxa weeye annagoo garab siinna sharciga iyo cadaaladda iyo ciidanka iyo inta ilaalinaysa horumarka dalkan iyo dadkan arrintaas waxaan rabaa inay dadka reer Puntland si dhab ah ugu baraarugaan waxaan u baahannahay Puntland abaal uma heli karto in nidaamkeeda la burburiyo iyadoo ahayd hooyadii federaalka iyo Soomaaliya inay wax ka dhiso diyaar waxaan weli u taagannahay inaan Soomaaliya wixii karaankeenna ah aan ku caawinno aan ku dhaanno wixii aanan isku dhaaminna aan si wada jira u wada raadsanno dalka xasiloonidiisa xil baa naga saaran Soomaaliya istaagideeda xil baa naga saaran guud ahaan waxaa intaa dheer khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Puntland iyo Somaliland ba laba maamul ay sidooda u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkiri karno wax jira xaqiiqo jirta laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalka gaaraan waan ku baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsoon yahay in laga gaaro inay muhiim tahay oo qolow aysan meel ku dhagan laakiin waxaa khalad ah in dowladdii dhexe ee federaalka dadaan xalka qaybba ka ahayn ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xalliga ama qaarkood lagu tuhmaayo hurgumada taalla inay qayb ka ahaayeen waa nasiib darro arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo eego waxaan aad aniga u garan la'ahay dad baa waxay yidhaahdaan war Siciidu waa waxa kugu dhacay nin degan oo fiican baad ahayd oo ninka hadduu runtu ka hadla ma xumaado ya waxaan la yaabanahay aniga dadka haddaan runta la isku sheego waxa la yidhahdaa wax ku xun oo beena waa la isku sheegaa marka in runta la isku sheego caafimaad baa ku jira annaga warkeenu mar walba waa cadiyahay mana qarsoomaayo ninkii isku daya inuu nidaamka Puntland hareer maro أنا وحنا بلن قاعدة يا أو كبرت أنا إلى على يوم نظام Puntland وحي حكمينا ودار تاس أنا كنت أجنان دون هذه الهيئة قفكي وناق وذنا لو بقوله وناق بنقول بدرنا أبار بنوهنا ما أنت ECW وحنا قم هالعلنا وحي تذكرنا وقبلنا سواء قم هالسنت عد كسر تذكرنا رقبة تنساس قم هالعلنا وحنا وضق بصرنا waxaan ballan qaadaynaa wixii lagu ogyahay inaan ka soo baxno dhinacaan waxaan si gaar u farayaa inay hay'adaha dawladda wixii lagu aaminay fuliyaan waxaan ka rajaynayaa xubnaha baarlamaanka sidii uu cawaala halka sheegay inay korjoogtayn sax ku sameeyaan sidoo kale dabagalka iyo baaridda waxa iska leh hay'adaha auditka oo iyagana rabno inay shaqadooda qabsadaan waxaan inay ballan qaadayaa inaan diyaar u ahayn mashruuc dad loogu talagalay in la musuqmaasuqdo ciddii musuqmaasuqdana in la mariyo waddada ay ku habboonto laakiin waxaan aad u rajaynayaa waan isla innagii qofka markaa meesha jooga haddaad waxaa rabta ka weydi ha toorjargarayn oo ha dhihin maaragtay baalal kale ha u baari ya waxaa la rabaa waxa saxda inaad ka shaqaysid qofku wuu khaldami karaa waxna wuu sixi karaa laakiin haddii adiga aysan wanaagga dhinaciisa uu kuu muuqan oo sida dabcigeenna ah dhibaatada aad u sii badanayso marka reer Puntland waxaan rajaynayaa dad waxaa lagu yaqaanaa inta badan rationaal ah oo caqligu uu taliyo waxaan rajaynayaa arrintaas inay noo sii kobocdo oo ilaahayna uu noo sii siyaadiyo ummadda kaleetana ilaahay u garasiiyo ma noqonayso in waxa aan ku wanaagsanna aan ka carabno mararka qaybtooda dad baa waxay leeyihiin war wanaagii aan sameeyno waa lagu nacay ma iska dayno ani saas aan fasirnaya dadka dhahay Puntland hal iska day federaal ku xirmaan ha sameeyaan federaal ma aha shakhsiyaadka madaxda ka Puntlandna ma aha aniga iyo dadka wasiirada ka waa system waxa la dhowrayo waa system waxa la dhowrayo waa sharci waxa la dhowrayo waa aragti siyaasadeed oo dalkan uu qaato oo la rabo in la kobciyo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii dadka soo qaybqaabay xafladan qiimaha badan sharaf bay aniga tahay waxaana mar walba diyaar u ahay meel kastoo tacliin lagaga hadlayo inaan imaado haddii ilaahay mashquul kastoo ah maxaa yeelay waxaan dareemayaa ahmiyadda ay noo leedahay tacliintii ay dadkeen waqtiga geliyeen way isbeddelka maamul ee maanta jira marka
waan ku boorinayaa wasaaradda inkastoon ogahay inay dadaal badan ku bixiso manaahijta